dilalka ka dhacayay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa iska soo daba dhacayay muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo ciidamada nabadgelyaduna ay sameynayaan dadaal xooggan sida oo kalena isku bedel iyo isku shaandhayn lagu sameeyay haliyayaashii degmooyinka magaalada Hargeysa kala maamuli jiray ilaa iyo haatan si xal looma helin caqabada nabadgelyo darrada ah ee ku soo siyaaday caasimadda Somaliland haddaba maxay yihiin talooyinka loo soo jeedinayo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro maxaa soo celcelinaya dhacdooyinka nabadgelyo darrada muujinaya sidee ayuu u dhacay dilkii ugu dambeeyay habeennimadii xalay warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi yaasiin Saleebaan Quuche nin lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay ayaa habeennimadii xalay ahayd lagu dilay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland iyadoo xaafad ama guri uu ka ahaa ilaaliye ay ugu dhaceen sida faahfaahinta dilku u dhacay markii dabagal warbaahinta xogogaal iyo baaris ku samaysay ay ogaatay inay rag tuugii halkaasi ugu dhaceen iyadoo ugu dambeyntiina ay dhacdadaasi keentay dilkiisa ciidamada nabadgelyada ee Somaliland oo ka howlgalay markiiba sida ay sheegeen ayaa faahfaahin kooban oo ay ku soo qoreen ardaagooda Facebook waxa ay ku sheegeen faahfaahin kooban sida oo kalena way xaqiijiyeen dilkaasi inuu dhacay balse may sheegin in la soo qabtay gacan ku dhiglihii dilkaasi geystay waxana ay sheegeen inay baaris iyo dabagal ku jiraan sababihii dilkaasi keenay dibna ay kala soo wadaagi doonaan bulshada iyadoo intaasi ay ku sii dareen ciidamada nabadgelyada Somaliland inay dadku iyaga ka sugaan wixii war ah oo aanay qaadanin wararka kale ee isdhex socda baraha bulshada kuwaasi oo ay ka feejignaadaan dilalka soo noqnoqonaya ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ka dhacaya oo qaar aan lahaynin dadkii geystay ayaa keenaya nabadgelyo darro xooggan iyo walaaca shacabku ay ku seexdaan ama si ku soo toosaan mana ahayn wax looga bartay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland inkastoo uu dilku dhici jiray kuwa noocaasi isugu xigxiga ama si la waayay cidii geysatay ayaa ku yaraa gudaha Somaliland tani oo noqonaysa calaamad su'aal iyo xujo hortaala ciidamada nabadgelyada ee Somaliland iyo xukuumadda ciidamada booliska ayaa sameeyay isku bedel iyo isku shaandhayn iyadoo taliyuhu gabi ahaanba isku bedelay taliyayaashii qaybaha iyo xaafadaha kala duwan iyo degmooyinka maamuli jiray kuwaasi oo haatan xil wareejintoodu ay socoto taliye Cabdidheere ayaana waxa uu wadaa dadaal xooggan oo uu ku kasbanayo nabadgelyada magaalada Hargeysa ee Somaliland oo uu si buuxda gacanta ugu dhigo hase yeeshee ilaa iyo haatan kuma guuleysan oo waxa sii socda dhacdooyinkii nabadgelyo darrada ahaa ee lidiga ku ahaa xasiloonida iyo deganaanshaha ay Somaliland caanka ku tahay kuna soo caanamaashay 35 sanadood ee ugu dambeeyay oo ay ahayd nal ka dhex baxaya geeska Afrika iyadoo talooyin kala duwan loo soo jeedinayo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaana ugu horeeya bedelka taliyaha ciidanka booliska oo ay dadku si weyn farta ugu mudayaan ama si aaminsan yihiin in haddii la bedelo hoggaanka ciidanka nabadgelyada ay xaaladda nabadgelyadu isbedelayso taliye Cabdidheere oo militariga Jamhuuriyadda Somaliland ka tirsanaa ahaana afhayeenkii ciidanka militariga ayaa khubarada qaarkeed ay aaminsan yihiin in taliyaha ciidanka booliska loo cugto shakhsi nabadgelyada iyo ciidamada booliska aqoon u leh taasi oo aan ciidamada militariga laga soo xulan balse saraakiisha ciidanka booliska ee aqoonta u leh nabadgelyada sidoo kalena soo qaatay koorasyada nabadgelyada ee kala duwan loo cugto taliyaha ciidanka booliska khubaro kale oo dhinaca nabadgelyada ah ayaa iyaguna waxa ay ku talinayaan in xataa la raaciyo wasiirka arrimaha gudaha maadaama oo ay hoos tagaan ciidamada booliska iyo nabadgelyaduba wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland taasina waxay noqon kartaa mid lagaga begsado dhacdooyinka nabadgelyo darrada ah ee ka dhacaya caasimadda Somaliland ee Hargeysa ma u baahan tahay barashada Qur'aanka Kariimka iyo culumtiisa Machadka Luqmaan Al-Hakim Islamic Online machadku maadooyinka uu bixiyo waxa ka mid ah barashada Qur'aanka iyo ahkaamtiisa barashada hingaada iyo qoraalka barashada ducooyinka barashada xadiista nabiga barashada luqadda carabiga barashada luqadda Soomaaliga haddaba si aad iska diiwaan geliso kala xiriir WhatsApp numberka shaashada kaaga muuqda